Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa qorsheynaya in uu qaado tallaabo jawaab u ah ciidamadii uu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee waqtigu ka dhamaaday shalay geeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida ay noo sheegeen xubno ku dhow xafiiska Ra'iisul Wasaare Rooble. Tallaabooyinka uu qorsheynayo Rooble ayaa waxa ugu weyn inuu isbedel ku sameeyo taliyayaasha ciidamada si uu gacanta ugu dhigo amniga dalka iyadoo hadda ay muuqato in Farmaajo uu si buuxda gacanta ugu hayo ciidamada kuwaas oo siyaasadda u adeegsanayo. heshiiskii golaha wada tashiga qaranka ee 9 Janaayo Muqdisho lagu saxeexay ayaa waxa ku jiray in ciidamada aan loo adeegsan siyaasadda balse waxa cad in qodobkaasi uu jabiyay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. sida aan xogta ku helnay Rooble ayaa qorsheynaya in shirka golaha wasiirada ee toddobaadkan lagu bedelo taliyayaasha ciidamada qaarkood iyada oo golaha wasiirada ay awood u leeyihiin soo jeedinta isbedelka ciidamada. qorshaha Rooble ayaa waxa xalay tusmeeyay wasiirka arrimaha gudaha Generaal Mukhtaar oo sheegay in aysan xukuumaddu ka warqabin isla markaana aysan jirin cid kala tashatay ra'iisul wasaaraha ciidanka la geeyay magaalada Beledweyne. waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumaddu ay go'aan ka soo saari doonto xiisadda Beledweyne iyo qorshaha ka dambeeyay ciidanka la geeyay isla markaana ay qaadi doonto tallaabo ka dhanahay. Rooble ayaa muddo ka cagajiiday inuu isku dayo in uu xilalka ka qaado taliyayaasha ciidamada isagoo u arkayay mid meel xun gaarsiin karta dagaalka kala dhaxeeya Farmaajo hase yeeshee waxa hadda u cadaatay in aan laga fursan karin arrintaasi. Farmaajo ayaa horay ciidamada ugu adeegsaday in uu ku boobo doorasho goboleedyadii Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaana ciidanka Beledweyne la geeyay qorshahoodu yahay in lagu boobo kuraasta golaha shacabka ee taala halkaasi. sida aan xog ku helnay Rooble ayaa sidoo kale qaadi kara tallaabooyin kale oo ka baxsan bedelka taliyayaasha ciidamada inkastoo aan faahfaahin laga helin. dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Sareeye Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxa uu shaaciyay inay sameeyeen ciidamo gaar ah oo u tababaran la socodka iyo ka hortagga dambiyada iyo akhlaaq darrada ka dhacda social media. Taliyaha Xijaar ayaa waxa uu sheegay in dalka ay ku soo bateen dambiyo nooc cusub ah gaar ahaan baraha bulshada oo uu sheegay in dadka qaarkood ku faafiyaan waxyaabo wax u dhimaya akhlaaqiyaadka bulshada saameeyna ku leh dhaqankeena. waxaa soo baxay dambiyo cusub oo aan hor u qabi jirin waa in lala socdo oo la raaco. ciidan badan ayaan u tababarnay oo waxaan u sameeynay hoggaan gaar ah oo isaga la tacaala sidii dambiyadaas loo yareyn lahaa ayuu yiri Taliyaha Xijaar. taliyaha oo hadalkan ka jeediyay shir sanadeedka garsoorka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay sare u qaadeen tababarada ciidamada iyo saraakiisha kala duwan ee dawladda. waxa uu intaasi ku sii daray waxaan isleeyahay marka aan qiimeeyo sanadkii la soo dhaafay isbedel weyn oo la taaban karo ayaa ka jira dhinacyo badan oo ay ugu horeyso xeer ilaalinteena iyo maxkamadaha. hadalkan ayaa imaanaya xilli ay baraha bulshada ku soo bateen waxyaabaha anshax ahaan aan wanaagsanayn kuwaasi oo ugu dambeysay haweeney hooyo oo 2 caruur ah oo ay dhashay ka duubtay muuqaal ay siinayso shiishad taasi oo markii dambe ay gacanta ku soo dhigeen laamaha ammaanka ee Soomaaliya.